mana u qalmo mana aha urfiga adduunyadana madaxweyne kuma aha muslimiinna madaxweyne uma aha afka aad ku hadashayna waa af uu ku hadli lahaa nin gumaysiga reer Yurub iyo xabashida afhayeeno ah sidoo u hadli lahaa sidii ugu ladnayd baad u hadashay horta sidii ugu ladnayd ayaad u hadashay waxyaabuhu ku hadlay qodobo badan weyn qodob kaliya ka rabaa qodobkaasi waxa uu yiri geeska Afrika bal ka waran baa leeyahay wuxuu geeska Afrika cadow kaliya yeeshay cadowgana qushaash buu bixiyay qushaash idinka shabaab baa tiraadaan buu yiri anigu waxaan leeyahay qushaash malaabariga hore dabaajirta kamid ahaan jirayo dabaajirtu wax ka naanays badan moog qushaash buu yiri gaalada xabashigu shabaab buu yiraahdaa haddaad adigu qushaash tiri adigu haddaad qushaash tiri xabashigu wuxuu ku yiraahdaa ashabaab buu yiraahdaa qushaash ma yiraahdaa xabashigu yani uu ku afdhaama dhinaca markeedu eegno waana sida ujeedada rasmiga tahay halka marka aad joogtana waxaad saxiixdaa oo halka kirinka aad ka talisa ka soo baxa tiiman bicsa ah oo nasaara ah oo kiniisada wareegta la yiraahdo ayaa halkaaga sharci ka ah oo gobolada muslimiinta oo dhan ku wareega oo kulba meel dhago teenda ka dhisan kiniisada wareegta waxaan leenahay ninka maxaa jawaab inooga ah jawaab kale kuma haynee adiga iyo annagaba awooyaasheen iyo ayeeyaasho waxay oran jireen ma taqaanaa waxay oran jireen amxaarka u raaye inta eridaan bal ma arrinkiina Allah ku xidhaan Allah ligu atoor indaa ka rido Allah ubadkiisa agoon ka dhigay adigay kugu socotaa imika adiga weeyaan waxaan kugu maamahay anigu wax kale kuma oranaye abwaankii fannaankii ciidamadii dawladii siyaad barre kamid ahaan jiray baa waxa uu yiri ahdi malaha xabashidu ninkii aaminayo min abeesa koriyo adigu baa uu aaye adigu bal alanbaq ha ka sokayni waad sarki doontaa annagu waxba ku soo gaarsiin mayne bal alanbaq ha ka sokayni shirku dhimani ragii waagaya sharafsan noolo wardiintani quyuurin bay halkan ku soo gaadhay quyuurkina uu dhalan maanta uu nooliyay adinka daahoosheena noqotaan baan idinka digayaa inaad ilaahay u noqotaan oo tarbiyadii saxiixa ay dib ugu noqotaan oo idan almaani iyo amxaar iyo ingiriis iyo maraykan iyo manaahijtooda ay idin soo rareen idin soo qoreen ee madaariska ku dhigaysaan taa inaanay diinta islaamku cisi ku helay wanaagna ku gaarin idan waxaan leenahay ikhwaani fillah ilaahay inna lillahi diinan khalisan ilaahay wuxuu doonayaa diin baraxla daaca iyo cibaado saafiya buu rabaa oo istusnimo iyo damac adduunyo ku jiri idinka xilkan maxaa idin geeyay waa kaliya munaasasaadka yaanay laga xidhay soo maaha idinkoo bari ammaan taagan oo idina idinku soo dhici karin baa isdhiibteen oo qoolka isku xidheen oo tagaya goboladan Soomaalida oo dhan gumaysi bay maanta ku jiraan anigu waxaan ka reebayaa ma jirto haba yaraatee gumaysiga ay ku jiraan way kala tagsan yihiin qaarkoodna kuwa askariya baa lagu haystaa qaarkoodna dawcan damac adduunyo iyo ikhtiyaarkooda ku raaceen wada kirin bay wada noqdeen kullu laakiin kirimada Itoobiya haysata ayaan ka hadlayaa maanta min isku magacaabay madaxweyne laakiin waxaan ku tilmaamo ma garanayo de madaxweyne mana u qalmo mana aha urfiga adduunyadana madaxweyne kuma aha muslimiinna madaxweyne uma aha ragii ka horeeyay 5 sanadood hore ma dhamaysan jirin jeelna kama sugan jirin adigu waxaad noqotay ibni baari ah xayla salaasayaasha ayaad baari u tahay sifada aad leedahay waa taa waxaana markaa dadka intii kugu qasbaneed ku hoos joogtay waad baabiisay oo waad fasahaadisay min isku magacaabay madaxweyne laakiin waxaan ku tilmaamo ma garanayo de madaxweyne mana u qalmo mana aha urfiga adduunyadana madaxweyne kuma aha muslimiinna madaxweyne uma aha afka aad ku hadashayna waa af uu ku hadli lahaa nin gumaysiga reer Yurub iyo xabashida afhayeeno ah sidoo u hadli lahaa sidii ugu ladnayd baad u hadashay horta sidii ugu ladnayd ayaad u hadashay waxyaabuhu ku hadlay qodobo badan weyn qodob kaliya ka rabaa qodobkaasi waxa uu yiri geeska Afrika bal ka waran baa leeyahay wuxuu geeska Afrika cadow kaliya yeeshay cadowgana qushaash buu bixiyay qushaash idinka shabaab baa tiraadaan buu yiri anigu waxaan leeyahay qushaash malaabariga hore dabaajirta kamid ahaan jirayo dabaajirtu wax ka naanays badan moog qushaash buu yiri gaalada xabashigu shabaab buu yiraahdaa haddaad adigu qushaash tiri adigu haddaad qushaash tiri xabashigu wuxuu ku yiraahdaa ashabaab buu yiraahdaa qushaash ma yiraahdaa xabashigu yani uu ku afdhaama dhinaca markeedu eegno waana sida ujeedada rasmiga tahay halka marka aad joogtana waxaad saxiixdaa oo halka kirinka aad ka talisa ka soo baxa tiiman bicsa ah oo nasaara ah oo kiniisada wareegta la yiraahdo ayaa halkaaga sharci ka ah oo gobolada muslimiinta oo dhan ku wareega oo kulba meel dhago teenda ka dhisan kiniisada wareegta waxaan leenahay ninka maxaa jawaab inooga ah jawaab kale kuma haynee adiga iyo annagaba awooyaasheen iyo ayeeyaasho waxay oran jireen ma taqaanaa waxay oran jireen amxaarka u raaye inta eridaan bal ma arrinkiina Allah ku xidhaan Allah ligu atoor indaa ka rido
allow ubadkiisa agoon ka dhigay adigay kugu socotaa imika adiga weeyaan waxaan kuugu maamahay anigu wax kale kuma oranaye abwaankii fannaankii ciidamadii dawladii siyaad barre kamid ahaan jiray baa waxa uu yiri ahdi malaha xabashidu ninkii aaminayo min abeesa koriyo adigu baa uu aaye adigu bal alanbaq ha ka sokayni waad sarki doontaa annagu waxba ku soo gaarsiin mayne bal alanbaq ha ka sokayni shirku dhimani ragi waagaya sharafsan noolo wardiintani quyuurin bay halkan ku soo gaadhay quyuurkina uu dhalan maanta uu nooliyay adinka daahoosheena noqotaan baan idinka digayaa inaad ilaahay u noqotaan oo tarbiyadii saxiixa ay dib ugu noqotaan oo idan calmaani iyo amxaar iyo ingiriis iyo maraykan iyo manaahijtooda ay idin soo rareen idin soo qoreen ee madaariska ku dhigaysaan taa inaanay diinta islaamku cisi ku helay wanaagna ku gaarin idan waxaan leenahay ikhwaani fillah ilaahay inna lillahi diinan khaalisan ilaahay wuxuu doonayaa diin baraxla daaca iyo cibaado saafiya buu rabaa oo istusnimo iyo damac adduunyo ku jir idinka xilkan maxaa idin geeyay waa kaliya munaasasaadka yaanay laga xidhay soo maaha idinkoo bari ammaan taagan oo cidina idinku soo dhici karin baa isdhiibteen oo qoolka isku xidheen oo tagaya goboladan Soomaalida oo dhan gumaysi bay maanta ku jiraan anigu waxaan ka reebayaa ma jirto haba yaraatee gumaysiga ay ku jiraan way kala tagsan yihiin qaarkoodna kuwa askariya baa lagu haystaa qaarkoodna dawcan damac adduunyo iyo ikhtiyaarkooda ku raaceen wada kirin bay wada noqdeen kullu laakiin kirimada Itoobiya haysata ayaan ka hadlayaa maanta min isku magacaabay madaxweyne laakiin maxaan idhaahdaa waxaan ku tilmaamo ma garanayo de madaxweyne mana u qalmo mana aha urfiga adduunyadana madaxweyne kuma aha muslimiinna madaxweyne uma aha ragii ka horeeyay 5 sanadood hore ma dhamaysan jirin jeelna kama sugan jirin adigu waxaad noqotay ibni baari ah xayla salaasayaasha ayaad baari u tahay sifada aad leedahay waa taa waxaana markaa dadka intii kugu qasbaneed ku hoos joogtay waad baabiisay oo waad fasahaadisay min isku magacaabay madaxweyne laakiin maxaan idhaahdaa waxaan ku tilmaamo ma garanayo de madaxweyne mana u qalmo mana aha urfiga adduunyadana madaxweyne kuma aha muslimiinna madaxweyne uma aha afka aad ku hadashayna waa af uu ku hadli lahaa nin gumaysiga reer Yurub iyo xabashida afhayeenu ah sidoo u hadli lahaa sidii ugu ladnayd baad u hadashay horta sidii ugu ladnayd ayaad u hadashay waxyaabuhu ku hadlay qodobo badan weyn qodob kaliya ka rabaa qodobkaasi waxa uu yiri geeskan Afrika bal ka waran baa la yiraahdo wuxuu geeska Afrika cadow kaliya u yeeshay cadowgana qushash buu bixiyay qushash idinka shabaab baa tiraadaan buu yiri anigu waxaan leeyahay qushash malaabariga hore dabaajirta kamid ahaan jirayo dabaajirtu wax ka naanays badan moogta qushash buu yiri gaalada xabashigu shabaab buu yiraahdaa haddaad adigu qushash tiri adigu haddaad qushash tiri xabashigu wuxuu ku yiraahdaa ashabaab buu yiraahdaa qushash ma yiraahdaa xabashigu yani uu ku afdhaama dhinaca markeedu eegno waana sida ujeedada rasmiga tahay halka marka aad joogtana waxaad saxiixdaa oo halka kirinka aad ka talisa ka soo baxa tiiman bicsa oo nasaara oo kiniisada wareegta la yiraahdo ayaa halkaaga sharci ka ah oo gobolada muslimiinta oo dhan ku wareega oo kulba meel dhago teenda ka dhisanada kiniisada wareegta waxaan leenahay ninka maxaa jawaab inooga ah jawaab kale kuma hayne adiga iyo annagaba awooyaasheen iyo ayeeyaasho waxay oran jireen ma taqaanaa waxay oran jireen amxaarka u raayay inta eridaan bal ma arrinkiina Allah ku xidhaan allow ligu atoor indaa ka rido allow ubadkiisa agoon ka dhigay adigay kugu socotaa imika adiga weeyaan waxaan kuugu maamahay anigu wax kale kuma oranaye abwaankii fannaankii ciidamadii dawladii siyaad barre kamid ahaan jiray baa waxa uu yiri ahdi malaha xabashidu ninkii aaminayo min abeesa koriyo adigu baa uu aaye adigu bal alanbaq ha ka sokayni waad sarki doontaa annagu waxba ku soo gaarsiin mayne bal alanbaq ha ka sokayni shirku dhimani ragi waagaya sharafsan noolo wardiintani quyuurin bay halkan ku soo gaadhay quyuurkina uu dhalan maanta uu nooliyay adinka daahoosheena noqotaan baan idinka digayaa inaad ilaahay u noqotaan oo tarbiyadii saxiixa ay dib ugu noqotaan oo idan calmaani iyo amxaar iyo ingiriis iyo maraykan iyo manaahijtooda ay idin soo rareen idin soo qoreen ee madaariska ku dhigaysaan taa inaanay diinta islaamku cisi ku helay wanaagna ku gaarin idan waxaan leenahay ikhwaani fillah ilaahay inna lillahi diinan khaalisan ilaahay wuxuu doonayaa diin baraxla daaca iyo cibaado saafiya buu rabaa
oon istusnimo iyo damac adduunyo ku jiri idinka xilkan maxaa idin geeyey waa kaliya munaasasaadka yaanay laga xidhin soo maaha idinkoo berri ammaan taagan oon cidina idinku soo dhici karin baa isdhiibteen oo qoolka isku xidheen goboladan Soomaalida oo dhan gumaysi bay maanta ku jiraan anigu waxaan ka reebayaa ma jirto haba yaraatee gumaysiga ay ku jiraan way kala tagsan yihiin qaarkoodna kuwa askariya baa lagu haystaa qaarkoodna dawcan damac adduunyo iyo ikhtiyaarkooda ku raaceen wada kirin bay wada noqdeen kullu laakiin kirimada Itoobiya haysata ayaan ka hadlayaa maanta nin isku magacaabay madaxweyne laakiin maxaan idhaahdaa waxaan ku tilmaamo ma garanayo de madaxweyne mana u qalmo mana aha urfiga adduunyadana madaxweyne kuma aha muslimiinna madaxweyne uma aha ragii ka horeeyay 5 sanadood hore ma dhamaysan jirin jeelna kama sugan jirin adigu waxaad noqotay ibni baari ah xayla salaasayaasha ayaad baari u tahay sifada aad leedahay waa taa waxaana markaa dadka intii kugu qasbaneed ee ku hoos joogtay waad baabiisay oo waad fasahaadisay